waxba loo sheegay xalay war gabadhan waa la qabaa war familkeeda raadsanaya war gabadhan ka joog xaga u daba socota markaas buu wuxuu leeyahay ma gabadhan ma qabo war gabadhan waa gabar la qabo laba soo dhashay markaas kulli waa bikro السلام عليكم صاحبي الملك ساعة شوكتان سكسو مقالك جديد سو قاريبا halka diga daawanaysa waa channelka Shaacir Sheekay laakiin Shaacir Sheekay ku soo dhawaada barnaamijka lahaynta bulshada aad ku gaay waata saaxib baalinta barnaamijka ugu gelin fadlan subscribe saar channelkayga sidoo kale leeyahay muuqaalkan si uu gaar saaxiibo badan waata social media ma marka ka dambaysa oo ka sii daraya aniga waxaan ku qasbanahay inaan dib ugu soo laabto aalada YouTube-ka sababtoo ay tahay markii aan maanta barnaamijka bulshada ku arkay muuqaal kale oo la yaabkiisa waa muddo hadda sanad gudihiisa سنة تمام دمس ورهذا حاصل نقول مويد نحتاج ما أنت رجع سوماليات عب يفحشر بي الواحد كل شيء أما رجع سوماليات ما أنت عب وين أما هذا وين بقول على تاوه إن أو صوب حي سنة جديس نن مرة بعد ميرة والله بلا تلا كنت قار حدي على آخر ستة واسك قصليسة هذا بقى أنت أنا مقال كان أقول الجليل مقال كان كهل ربط مركا يدين شيء مركا يدين شيء أد كل يوم بدن يدين كبار أنا مسنا هذا الهيدين حقيقة السنة سويدين السين وويل كان بلا يرضى لقوم عم حبوس كوت يوتيوبر كا أنت بدن أنا مسنا إنه يهيدت كاس كل شغلة نعمل كلا في شوية أريمها رأي جيس كوسو قد بيع أما بقى مركا هذا الحين تأه كوسو بندقة مركا ويل كان ما أنت يوحى لي هاي جبر بو صور عاي ولي بقى جبر لقوي بو السجو أو عن عندكم مهرين في ملك كده بالواقع يبو السوشيال ميديا هركاني هذا بقى سيئات وحيابها صورنا وجاني في ملكي صوتها كده بقيلنا أنت سوي حكي كده بقى بالمركور ويل كان وحاسودين السين محاي السوشيال ميديا يوتيوب مركي لقى صوتها كده يوتيوب كذب أما يوتيوب مركي حاجة لسه كده محاي السوشيال ميديا كصوب بديكان وشعيل طبعا والرومانتيك وحكي معهن بالمقالد ده أنا وحير وضفيه سيدا ونوير كاغرو ودعيوضو والإيقادو وحيالي هناهم وده سيدا وشيدين بقى مقالود انت بدل اما تيك توك قاعد يهان لهذا ادو ابديت بريه قدام بي ابديت بي هايين waxa la yiri warka war soo dhaaf romantic ama dadkii lamaanaha qayla ka soo dabayirtay ninka maxamed gudaha xaaladu waa ay ku xintahay sababtoo ah waxa loo haystaa in gabar uu qabay nin Faransiis oo muslim ah oo jilaafaynta u dhigay oo social media keenay kadibna uu kubadaha si qaldan u baastay isagoo aan xaalad isku hubin isagoo aan wax xaqiiqo ah aan raadinin waliba waxa fiiro gaar mudan in arrintan aysan ahayn mid ugub ah hadii ugub ahaan lahayd xalqiyaha bilaa in xogaa la isdhiilaa oo ninka waxba ka wareeray laakiin waxa xaqiiqo ninkan inuu waysto example ku filan oo ah kii Turki ka socday rabin hadda maadaama uu filinkaas iska dhamaad inaad dib ugu laabto kii Turki ka socday isagoo oo aan wali shaleemooyinka canjiladiisi aysan ka dhamaanin buu si qaldan mar labaad ninka odaga waxa la yiri kubado u baastay bal markan aan wada dhageysano familka gabadha sida ay u baadi goobayaan in uu la sheegay inuu ninkan ku haysto afduub gabadhan isla markaana uu si qaldan u soo gurgeystay social media-na uu si qaldan ku keen marka cadayn iyo tilmaam gaar ah uu ishaaro gabadhaas maanta in ninkii muslimka ah ee Faransiiska ah ay kala tageen cadaynaysa reer kuma haya iyadoo sama sheegi kartaa ما هي وحاطين ما هي أود حمد وضو حدول كنتوا تجين جوتا توصلوا لي من عنكم gabadhu imisa caruur ay leedahay baa tiri شعر ولا oo tirada saddex baan moodayay ma shan baa وشان صدق جوا أفريقيا لو جوا فرنسا idinku marka waad ogeedeen iyadoo ninka kan Faransiiska ah ee muslimka ah arrintan laba mid buu keeni kartaa hadii arrintan xaqiiqo noqoto wiilkan youtuberka ah laba midba way keeni kartaa in nin iyo naag dambe oo social media isla doobinaya ee iska daba ordaya warkooda laga soo qaado nin waalan iyo naagtiis waa hadii qof dambe nin iyo naag dambe oo isku hayay social media isku shushuminaya in laga aamino nin waalan iyo naagtiis sababtoo ah intaan ka badan dadka Soomaaliyeed waxaan uma dul qaadan karaan waayo waa sanad gudihiis markii ay soo yeerisay qeyladaan waliba waa youtuber qofku haduu xitaa uusan youtuber ahayn waxbay ahaale laakiin sanad gudihiis qof youtuber inay ka soo daba dhawaaqda qayla ah in uu gabar soo dhacay waxaas wax walba iga sii daran dhibaatada ay dadkani social media ku jiraahay ay inta badan ragga Soomaaliyeed u geysanayaan waxa arkaysaa gabar baa la furayaa markii la furo gabadha oo ay ninkii isqabeen ay kala tageen
waxaa leeyahay stupidka ninkiibaa stupid ahaa gabadha iyo ninka markay kala tageenna wax kale kuma kala tegina masayr iyo howlo jira iyo naag soo dhex gashay iyo naag ninkii ka dhacday wax saas bay ku kala tageen ninku stupid buu noqonaya waxaa leeyahay baaster dhalay oo ay dhala ah baa gabadhii dhibaateeyey hal cunug iyadoo laba cunug iyadoo loo furay markii hore waa uu reeb mar labaad haddana waxaa sidoo kale raggii Soomaali dhibaatadaas markii dumarku ay ku hayaan laga soo tago u geystay arrintan oo kale ragga sameynay waxa lagu leeyahay nin baa wuxuu ku leeyahay gabar la qabo oo og yahay in la qabo buu YouTube iyo waxa la soo fadhiisanaya markaas buu oo waxba loo sheegay xalay war gabadhan waa la qabaa war familkeeda raadsanaya war gabadhan ka joog xaga u daba socota markaas buu wuxuu leeyahay ma gabadhan ma qabo war gabadhan waa gabar la qabo laba cunug soo dhashay markaas kulli waa bikro war gabadhan bikro maan xaga isku inta wala joogaya hadana dhowr muuqaal markuu soo duubay kadib arrintii dhanaanaato xeeri fandhaal kala dhacaan oo la ogaado buu ku leeyahay hadhow ma fahmin ma ogeyn ma u malaynaynin buu ku leeyahay war adiga markii wax lagu sheegay oo dadkan familka gabadhan ay reysanayeen aduu miyaad dhihi weysay horta gabadhan yay tahay xagee ka soo jeedaa intaadan barkoor maxay ahayd xagee joogtay su'aalahaas oo dhan soomaysan mudnayn intaada xariif fadhaal kala dhicina isweydiiso marka inta meel soo fadhiisato markii wix dhan la kala tago oo la kala daatay inaad tiraahdo ma ogeyn ma fahmin ma waa ilaa hadda waxyaaba laga baaray marka raggaasuna waxa la yahay rag Soomaaliyeed ay idinka u maleynayeen kaliya dhibkiin soo gaarayso laakiin qof kasto oo rag magac Soomaaliyeed wiil ama rag Soomaaliyeed ku abtirsada buu jabka soo gaaraya marka waa lagu qasban yahay laga hadlo oo la yiraahdo ka jooga wardaadkan aad ku socotaan ka joogsada laakiin ugu dambeyn waan soo gabagabeynaya Maxamed Buskud iyo gabadhaas walaashay hal arrin baa ugu soo gabagabeynaya xalay harta Maxamed Buskudow waa markii ugu horreysay maleynaa muuqaalkiisa ka hadlo wax kale laga ma hadleen maanta aad buu baraha bulshada arrintiisa wax la yaabay waay dabcan laakiin waxaan ku leeyahay umaleyn ma inay YouTuber-ta ku jeeda kuma nacbi oo halka aan ahay laakiin hal arrin baa ku leeyahay arrintan maadaama ay tahay mid ugub ah oo lagu soo yeeyo gabadha familkeeda qaarkood ay hadlayaan laba arrin baa adigu ku furan tahay xaaladan ha isugu sii dheereeyeen sida Turkiga oo kale sida ay tahay u soo koob adiga oo waliba hal muuqaal kaliya ku soo koobay ha isku dayin markii xeeri ee fandhaal kala dhacdo in aad wax faahfaahisid isku day inta ay hadda xaaladu cakiran tahay ama taagan tahay in aad hadalkaaga soo koobtid wax kale kuma soo koobi kartid waxa ku soo koobi kartaa haddii aad tahay nin isku kalsoon oo og in gabadhan ay wada joogaan aysan marnaba reer la qabo ama aysan ayadoo reer ah aadan iska soo xareysanin haddii aad isku kalsoon tahay ayadoo gabadha soo fadhiista dadkan Soomaaliyeed arrintiinan ku wareersanna u faahfaahiya laakiin haddii aadan ahayn in aad isku kalsoonayn baadi goob badan samey gabadha familkeeda la xiriir meeshii markii hore lagu eedeynay dadkan familkeeda gabadha raadsanaya وانا هذا حتى انا حقيقتي كان فيلم كذا صحيح لكن شيغانا غبدينا فيلم قف شيغانا ما جيري يهين حرير بدن لا سمي marka waxa soo dhan soo hubsato falan adiga oo wax walba xaqiijinaya horibo hadii kala dhow kaama yeeli doono ma ogeyn ma fahmin iyo maxay ahayd ma sanadii